بسم الله الرحمن الرحيم وانيغو احمد نور محمد عبد الله كان soo hadlaya New Zealand dhamaan umada Soomaaliyeed haday gudaha joogan iyo haday dibadda jooganba waan salaamaya salaanka bacdigeed arintii waxaan daba socdaa wali Cabdikariim Sheekh Muuse ninkaas haliyay buu ahaa ciidamadu ka tirsanaa nin niyadiisu samayd bay ahayd nin dalka u soo halgamay buu ahaa nin Soomaali oo dhalad u ahaa ka daro dibi dhal ayaa dawladdu go'aan ka soo saartay arintaas ayada ahna ma aha run ahaantii arin dawladda looga fadhiyay waxaan idin sheegayaa haddii sida xaqa loo hadlaayo waxaa dhibaato loo geysanayaa ummadda Soomaaliyeed gabi ahaan inaysan waxba ahayn ayaa laga soo qaaday nin kastana dhibaatada noocaasihi waxay ku jiraysaa qalbigiisa iyo niyadiisa inuusan dalkiisa wax qiimo ah uusan ku lahayn waad aragtay quruumo dhan baa isugu baabaa hal qof oo meel ku xiran ama hal qof oo wax la yeelay ama hal qof oo si xun loola macaamilay waxaan leeyahay arinta ayada ah waxaan u arkayaa oo dawladdu gaadhay nin daad qaaday xumbo cuskay marka uu beelaha ku tirtirinayo oo uu leeyahay waa al-shabaab oo la leeyahay ee dalku dhibaato ku hayay halgan caalami ah oo magaalo walba wadan walba dal walba ah ayaa jabhadda ONLF ay ka jirtaa Yurub iyo Afrika iyo Carabta ayay xafiisyo ku leeyihiin waa ka xumahay calanka saddexda gees leh shanta gees leh calanka shanta gees leh ayay arintaa idinku aad gaadheen dhaawac u tahay ummadda Soomaaliyeed ayay dhaawac u tahay sharafta Soomaaliyeed ayay dhaawac u tahay baawaha Soomaaliyeed ayay dhaawac u tahay waxa weeye arinkaas asaga ah in lagu waxeeyo amxaaradu dadkii ay soo dhiibtay ee Soomaalida ahaa in loogu fiiriyo sidaas oo ninkaas sidaas loo dhiibo waa khaldantihiin aad iyo aad baad u khaldantihiin ciidamada amxaarada ee jooga wadanka ee u yimid nabad sugidana caalamka oo dhan waa isu baahan yahay in saal la isu kaalmeeyahay waa waajib laakiin waxyaabo badan ha isku khaldinina sharafkii iyo karaamadii ummaddu ay lahayd ayaad meel weyn aad uga dhacdeen aniguna nin dawladana jago gaara ka raba ma ahi nin dawladda xaasid ku ahi ma ahi aniga ummadda Soomaaliyeed sharafkeeda iyo karaamadeeda ayaa mar walba aan la qaylin jiray aan la hadli jiray taas halka markaan uga baxo waxa weeye ninka kililka shanaad madaxda ka ah ee ayaan dhaweydna aan la hadlay nama qabato hadalka aad ku hadashay nimanka odayaasha ahood meesha keentayna waxa weeye waa niman xaaladooda Ilaahay ogsoon yahay laakiin ma aha gobanimadii iyo sharaftii iyo haybadii ayagu ay geeyeen idinkaana ku khasbay ma ahane ayagu ma ay suubiyeen waayo dadka caadadooda iyo dhaqankooda waa la og yahay nimanka la yiraahdo absame nooc walbaba ha ahaadeene waa niman qadiyadda Soomaaliyeed nadiifka ah oo ku wanaagsan oo ku fiican hadday xagga diinta noqoto iyo hadday dhaqanka noqoto iyo hadday hidaha noqoto dadka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo taariikhda adduunyada meel fiican ka galay weeye hase yeeshee hadalka ayagu ay ku hadlayeen waa hadal ku saabsanaa kadeed kamiraysi dhib iyo wax lagu khasbay marka ha bahdilin dadkaaga sharafka dadkaagana ha dilin Ilaahay xukunkaas uu kugu dhiibayna waa kugu fiirsanayaa adigana waxaan ku leeyahay sidaan markii hore kula hadlay wax garo waryaa wax garo
ha fiirinin sadanada iyo xukunka aad hayso. xukunka adduunyada waa laga tegayaa, kii aakhira tegaysaa, xukunkii aakhira ayaa ku sugaya. ka fikir sharafta ummadaada. waxaan soo gelayaa shacbiga iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed. shacbiga iyo ummadda iyo waxgaradka Soomaaliyeed arrinka ayaga ah waa ay liqi waayeen. meel walbaan isla joognaa, akhbaartaa la kala helaa. arrinkaas ma geyno, arrinkaa lama qaadan karo. waa in si kastood yeeshaanba, horena waanu sheegay, si kastoo yeeshaanba Cabdikariin Sheekh Muuse waa in caruurtiisa iyo xaasaskiisa loo soo celiyaa. waa in ciidamada qalabka sida ee uu ka tirsanaan jiray ee Soomaaliyeed ee hadda u kabay niyadda loo dhisaa. waayo ciidanku dhaawac baa ka gaaraya ciidanka haddii nin soo halgabay oo soo dagaalamay oo walaalihiisna ay ku dhinteen si fudud loo xumeeyo, cadowna loogu dhiibo, la jir dilo, la dhibaateeyo. marka waxa weeye baroortu orgiga ka weyn. wax kalaad u dan leedihiine waa in waxa qarsoon aad soo bixisaan. waana in ninkaas halgan adag loo galaa. annagu ma ka aamusayno, waana ku dheganahay. waayo sharafka Soomaaliyeed markuu xumaado annaga sharaf nooma yaallo. taasna halkaas ayaan uga baxayaa. xabashida oo aan la hadlay, oo haddeerna aan la hadlayo, war hadday karaamo iyo dadnimo ay dowladdayadii dhammayd ay yeelan weyday, waxa weeye dad Afrikaanaha tihiin, dad derisahaan nahay. waxaan leeyahay soo celiya ninkaas ha la soo celiyo. ninkaas caalamka, shuruucda caalamka ee la sameeyey waqtiyo kala duwan, ninka asaga waa halgamaa oo NLF ka tirsan. haddeer haddii uu ka tirsan yahayna waxa weeye waa nin xuquuqdiisii u dagaalamayay. sidaa daraaddeed waa inaad soo celisaan haddii aad caaqibo aad ka rabtaan ama aad doonaysaan saaxiibnimada iyo isku xirnaanta ummadda Soomaaliyeed. annagaa doorannay. haddii aan doorannayna waxa weeye waa inay ku shaqaysaa rabitaanka ayaga. marka haddii ayagu ay ka leexdeen, dowlad baa tihiin, dad wax kala garanayaa tihiin. dowladdaas ummadda Soomaaliyeed si aysan dhibaato u imaanin waa in dowladda aad ku soo celisaan Cabdikariin Sheekh Muuse. waa inaad ku soo celisaan. dowladda Itoobiya waa ka codsanayaa hadday waxgarad iyo dareen ay leeyihiin. aniga madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo maamul oo dhan waxa aniga aan afkaas aan ugu hadlayaa waxa weeye xil nin hayaahi waxa weeye waa ninka wax gartaa. garashadu hadday kaa habowdo xilkaagu waxba ma taro. anigu xil baan ku hadlayaa, warka xilka ah ayaan ku hadlayaa. xilkana waxaa iga saaran oo ii keenay waa aqoonta iyo cilmiga aan u leeyahay, sharafka iyo qiimaha loo baahnaa in la sameeyo. in dadkaaga aad geegeysa maaha. berrina ma waxaa geynaya maamulada geegeynaya dadkii. yaa soo haraya marka? qaar hadday badaha ku dhintaan, qaarna ay shabaab dilaan, qaarna ay dad kale dilaan, alloora Soomaaliya oo dhan marka waa baabi'inaysaan. marka halkaa waaye qaladka. marka halla toosaa in leeyahay Soomaaliya ka toosa oo si fiican wax u arka. arrintu waa weyn tahay. inta dhalanaysa iyo inta dhibanaysa haddaan isu fiiriyey 75% dad baa dhinta, 30% bay dhalshaan. waa la baaba'ay meesha. dalkan oo dhan in la rogaa la rabaa. tayda ugu dambaysa ee aan soo gelayo
xidigta shanta gees leh ee Soomaaliyeed ayaad maanta dhaawacdeen. haddii aad tiraahdeen waa in aan laga hadlin dhulalka la haysto. dhulalka la haystaahi way jiraan, waa la og yahay. adduunku waqtigu kala qaybsaday waa la yaqaanaa. calankaasi waxa uu taagan yahay shanta geesa dalkii la kala qaybsaday. marka halkaasna dhaawac weyn baad u geysateen calankii Soomaaliyeed. calankii baa in dul suran, shan geesood buu leeyahay. dadkii u halgamayay ayaa waxaa la yiri ninkii la arkaba ha la soo qabto. maxaa loo qabanayaa? wayfo caalamkoo dhan baaba ogsoore. waa lala socdaa jabhada xaqudiran inay yihiin. maraykankii bay ka qaylinayaan, ingiriiskii bay ka qaylinayaan, awstraaliyay ka qaylinayaan, talyaanigii bay ka qaylinayaan, carabtii oo dhan bay ka qaylinayaan. war waad waalantihiin, aad baad u waalantihiin. war aad baad u waalantihiin. war aad baad u waalantihiin. war Soomaalinimada yaan la dilin. war qabiil waxba ma taro. war qabiil waxba ma taro. weligay yaa Allaahi qabiil waxba kuma cunin. Soomaalinimo. war Soomaalinimo. war Soomaalinimo. war Soomaalinimo. war caruurta yaryarka oo dhalanaysa war yaan laga dhigin adeegto. war yaan laga dhigin dad liita. war yaan laga dhigin dad lagu shaqaysto. war dadkeenna cilmiga lahaa waa iska dillay. war dadkeenna culamada ah waa iska dillay. war waxaanay oo dhan waa baabi'inay. war xagga u soconnaa. war aaway ambiyadii, aaway rusuladii, war aaway kutubadii, war aaway quraankii, war aaway nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam quraanku ka tegey. war aaway taariikhdii. war aqoonta faranjiga ahi waxay tarto male. aqoonta siyaasadeed ee gaalada waxba ma tarto. waxa ayni leeyahay hoos wuxuu fiiriya. ilaahay wuxuu igu og yahay magaca Soomaaliyeed inaan wax ku raadiyo. magaca Soomaaliyeed ayaa ku dhargaya, qabiil ma ku dhargayo. horena waynu ku sheegay kilibyadaydii hore. dhaxalka dadka igu leh hooyada iyo aabbaha iyo awlaadayda dadka dhaxalka igu leh maahane Soomaalida kale waa siman yihiin. waar iska dhaafa qurunka iyo qabiilka iyo balaayada aad wadaan. hal nin baa la xirayaa, hal nin baa la qabanayaa. waa wareey ninkaas annagu haddaan qabiilkaas nahay hebel. war goormaad ilbaxaysaan? Soomaaliyay goormaad ilbaxaysaan? joojiya waxa ka waryaaya. caalamka la socda. raaca sunnada nebiga calayhi asalaatu wasalaam. khulufaau raashidiinkii raaca. war wax fahma. hadalkaygu waxaan ku soo gebagabaynayaa oo ku soo aruurinayaa dadka waxgaradka ah, garaadada iyo isimaduna ay weheliyaan, baarlamaankuna uu weheliyo, kiisa sare iyo kii hoose kan hoose. waxa weeye jaangooyo la yaqaano ummadda Soomaaliyeed ha loo sameeyo. waxaanu nolol ma aha. jaangooyo wanaagsan ha loo sameeyo. madaxweynuhuna madaxweyne asaga ugu weyn, asaga ra'iisul wasaaraha soo doortay, ra'iisul wasaaruhuna golaha wasiiradu soo doortay, baarlamaankuna asaga ayaa madaxweynaha soo doortay. waa in jaangooyo qiimo leh la suubiyaa. ninka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed waa in magacooda iyo haybadooda iyo karaamadooda la ilaaliyaa. dhulka iyo waxa ku dhex noolna la ilaaliyaa. qiimeyntana la ilaaliyaa. intaas ayaan idinkaga tegayaa. waxgartaan idhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Axmed Nuur Maxamed oo New Zealand idinkala soo hadlaysa. ilaahay ha ini badbaadsado ummadda Soomaaliyeed. nabadgelyo.